بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، marka hore ilaah baan ku shukriyeynaa subxaanahu wa tacaala. allaha noo ogolaaday inaannu ku kulanno guri ka mida guryihiisa. uma intaa kadib waxaan u mahadcelinayaa munadamatu lixsaan, walaalaha reer nairobi dhammaantood, rag iyo dumarba, carruur iyo ciroolaba, intii sababtay inaan maanta aan wada kulanno biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. inaad wax badan fadhideen waan rajaynayaa, laakiin kelimaadkaygu waxay noqon doonaan kelimaad kooban biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. kelimada koobaad waxaan leeyahay oo aan ka bilaabayaa muqaddime iyo hordhacna ay ii tahay: xaddid hadafaka min azawaaj. marka aad guursanayso waxaad marka hore si wanaagsan u ogaataa sababka aad u guursanayso. tusaale, dadka qaar baa waxay u guursadaan mutca iyo shahwo inay jidhkooda ay siiyaan. qaar baa sidaa guurka u guursada. qaar ka mida inay carruur badan dhalaan oo ay ku faanaan. qaar baa ayagana u guursada. qaar waxaa jira u guursada aad maamul noqotid, oo aad wax maamushid, ood hoggaan noqotid, oo laga yaaba inuu hoggaankaas si xun u isticmaalayo. qaar baa waxay u guursadaan inay naftooda cifo iyo dhowrsoonaan ay naftooda ay kaga helaan ayay markaa u guursadaan, iyo inay umamka muslimiinta ay badiyaan. qaar baa waxay u guursadaan, waa la guursadaaye guurso gabadhii kaa horraysay, deriskaaga ahayd, wiilkii kaa weynaa ama deriskaagiiyo saaxiibka ahaana wuu guursadayee guurso. sidaa daraaddeed ayaa waxaa aad u yar dad u guursada inuu gaadho risaalo iyo mas'uuliyad. guurku waa risaalo, guurku waa mas'uuliyad. waa mas'uuliyad weliba weyn, mas'uuliyatun cudmaa wa tacaawun mustamir ayaa la yidhaahdaa. saa daraaddeed qaacidada koobaad waxay leedahay: ittafaqa calaa kulli shayin qabla azawaaj. qaacidaan u qaadan doonnaa. qodobka koobaad oo inaad qorataan aan doonayo waxaa weeye, markaan doonayno inaan reer dhisno intaynan guursanin waa inaannu isku waafaqano wax walba. waxaa laga yaabaa inaad i weyddiisood i dhahdo, anugu wakhtigii waa i dhaafay. waxaan ku leeyahay kuma dhaafin. caawa markaad gurigaaga ku laabato ayaad odaygaaga dhihi kartaa, gurigaba waa la cusboonaysiiyaaye, daahaba waa la beddelaaye, aan hadda nolosheenni wax ka beddelno. qodob baan kaga hadli doonaa. qodobkeenna koowaad marka muxuu yahay? ku heshiiya shay walba intay isguursanin, oo iswaraysta. maxaad jeceshahay ka wada hadla, maxaad necab tahayna ka wada hadla. taasi waa qaacido aad iyo aad muhiim u ah. qaacidada labaad oo muhiimka ah, gurigiinna waxaa aasaas u noqon kara iimaan oo keli ah. aasaaska koobaad waa iimaan. aliimaanu ruuxu sacaada. iimaanku waa sacaadada ruuxdeeda weeye. haddaan doonayno marka inaannu helno
qoys wanaagsan waa inuu waxa lagu dhisaa waa inuu noqdo iimaan waa inuu noqdaa qodobkaasna waa qodobka labaad oo muhiimka ah markii aanu wax walba ka heshiinay oon saa isku guursannay gurigeenna waxa lagu dhisaayey waa inuu noqdo iimaan maxaa yeele doorashadeenni baa iimaan ahayd tunkaxu almar'atu liarbac walidiiniha diin baa la ysku doortay idaa jaa'akum man tardawna diinahu diin baa la ysku doortay markuu meherku dhacayay yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وسورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وسورة آل عمران صدح ذا آيات بالسنة أيال أقريا قرقا تقوى لغو دسي إيمان بالغو دسي إذن وحان لنا هاي الإيمان روح السعادة وإن قرقنا إيمان عن كل سنة قرقنا وإن قرآن لغو أقريا وإن قرآن كان لغا أقريا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقريه مؤمناتك أي الله تلماما يا هوانك نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هري وكاللويري ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وتربية إلهية وقريهن إن لقى أركا لدونيو إذا قضب كان الله بعد محوية السعادة مركا ربنو قريهن إنا كو حصلنو قريهن إنا كو دقنو وإن قريهن صلاة الليل لقيتو كذا قريهن وإن قرآن كان لقى أقريا قريهن وإن لقى فقيو وحيابها آلاتك حنحو وإن لقى فقيا سادرادت الإيمان روح الحياة روح السعادة قاعدة أن الصدحات أقري ونكسر نودي كرته وفهم الحقوق والواجبات حقوق ذا واجبات كلا اسكولي هي أو سيدي تهي لو فهمه أيا اللي هذا هل سؤال هذا أنو اسويدينه أو كليئة حق أدو الله ذهي إيا حق أدو اللي قولي هي كودي حق بدل حق أدو الله ذهي إيا حق اللي قولي هي كي حق بدل مر والبوحة حق بدل حق أدو اللي قولي سبب كايدين شيء يا هورنا وانو شيء لأن حق أدو الله ذهي صدح مدوي قضبك إلى قبطة وقضب بهيمة حق أدوك الله ذهي صدح مدوي إن لغو سيا ومعقول وكو إن لغو عفينة ومعقول إن لغو سيا ومعقول بروتش هذا إن أدو عفينة ومعقول حق عضاله حق عضاله صدح مدوي إن لغو سيا ومعقول قف كذا حق كله إنه يكون عفينة ومعقول لبدا هداد الدنيا كويدو أيضا آخر كاغه الرئيس أو إلهي أظهرتي ساعات كدودي بعد تجي خسارة ميت غبطة خسارة مقبت صدق هذا مدوي إما إن لقصيه إما إن أذوق عفيده إما إن الآخر أبو تكتو لكن حق أذوق حق أذين لقول هي وحق مرنا أن لقى عفين كرين أو خطر صوي وحن لنا مركا قاعدة قبسة أدي ما عليك وأدي ما عليك وحن لقول هي أذوق جذو وحال الربائنا مركا عملي أن كدقنا محاضرة ذينا بل عملي هذا أن كدقنا تصالة أن كبحنه سأن عملي هانو فهمنا نينكا قبل وحكون بسطي حقوق ذا بكسي وياي محاد سمينا يسامرك
ما وحدكم مشغول تصال أهان وحيق محل إيسين واي ما أذوق وحكوله السماء أذوق وحكوله السماء مركو أركن ننكو أذو السماين يا واحد كله حقيقة إنسان هو عجيب وحشون يا إنسان كحشود بكو أمورا وهذا وركا نكا كو أذو عريسان توساكا كعريسي أياد بحضي أيوب بحي عفن أسألوا كو عريسان أو أذو وكا عريسي أيوب بحي محا سميني كورنا هدو كو صون نغضو أذو قروح بدن أذو عرف بدن أذو عنتم عن الدياري أذو دول عدين يو قسلية ومحا دعي ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم آيات أساكو هجيسة ويا وحان القرية إن إيمان بالله ربا إيمانك كو هجية قرآنك كو هجية سنة النبي كو هجيسة صلى الله عليه وسلم مركزها وحاتري ما أنت آيات أساكو نغميا ادفع بالتي هي أحسن مايا وناقا راعيا siduu u lahaa xaaskii oo caraysan baad u tagi ayaad albaabka ka furtay may albaabka intuusan soo gaarin guriga albaabka kore laga soo galo inaan gabadha gaariyada ah hal bay kaga duwan tahay gabadha aan gaariyada ahayn gabadha gaariyada ah gurigeeda waxay ku shiday waxaa laga carfiyaa albaabka kore laga soo carfiyaa hada waa albaabka kore ayaa laga soo carfiyaa markuu albaabka kore soo galayo ayuuba marka horeba su'aal isweydiin waniyo maxaa jira gabadhii ayadoo caraysan baad ka tagtay talo maanta maxay samaysay gurigani maanta oma eka guri laga caraysan yahay asagu isa soo qanciyay ayaad albaabka ka furi adigoo noocee ah adigoo u eg habeenkii lagu aqal geynay habeenkii lagu aqal geynay adigoo u eg ninkii waa yaabaya caradii uu ka caraysiina wuu ogaa habba siisay waa soo dhawaysay dhabanadaad ka dhunkatay waad qaaday gurigii baad geysay shukumaan baad musqusha u geysay kabihii uu musqusha ku geli lahaa ayaad xagga u jeedisay wuu sii gashaday ninka noocaas ah waa dhaqangelin baa la dhahaa su'aal baan marka hore inaan weydiiye yaa diyaar u ah waa tuma gabadha caradaas intay xagga dhigto sida aan sheegnay ayadoo ka duulaysa qur'aanka iyo sunnada nabiga calayhi salaam iyo walaa tansawul fadla baynakum iyo wanaag la isla soo maray iyo inay noloshu sii socoto iyo inay nafteeda ka adkaato oo nafteeda xakamayso waxaan rabaa gabadha inay gacanta taagto ayada bas aan rabaa ma kulligiin ma gabadha arintaas samaynayso waa gabadhe waa kulligiin diya tamaam balaan aragna marka arintaas horta waa fariinta koobaad oo rabaa inuu dhaqanka sida noogu dhaqan galo waxbaan maqalay ma soconayso laakiin amal baan rabnaa inaan amal samaynaan rabnaa ninkii ana ka tagin saaxiibkay baadii ag fadhiya nimanka asaga madax ka ah haddii xaaskaagii oo kaa caraysiisay oo cunaha aad ku kala go'an tahay oo aad leedahay tan yaa istaagaba ku cuna ya haddaad albaabka ka baxdo oo adigoo naqsan hayo oo caraysan oo afka abuurka kicinayo xididadu ku kacayno oo dajeenku dhagax weyn lagu fariisiyay oo haddaad irinta ka baxdo kadibna ayada ka caraysiisay ogow hadda ayada ka caraysiisay kadibna ay isleedahay talow odagaagii sidee buu maanta yahay kadibna aad dhahdo war ma gabadhii wallaca soo martay war ma gabadhii xaamilada soo martay war ma gabadhii umushay ee umasheeda aan dul taagnaa war ma gabadhii intaa gogosha kuu qurxinaysay weligaa islaantaada haddaad u gogosho sariirta horta dhabar xanuun badan bay leedahay idinka rag haddaad tihiin waxaad u malaynaysaan gogol iska goglan baa iskaga seexataan wallaahi haddaad ogaan lahaydeen gabdhaha markay sariirta goglayaan
dhabar xanuunka ay kala kulmaan caqligaada maaha aniga hal maalin baa waxaan damcay xaaskaa waxay aaday Dubay caruurtii waxaan ku yidhi waryaada hooyo markay soo dhaweynayso aanu maqnahay guriga waxaan u imaadaa hadee nidaam ah oo cajaa'iba iyo sariir cajiiba iyo dhulka wixii la kala bedelay iyo ubixi ma taqarta gabadh baa ubaxay soo siisay gabadh yar baa soo siisay markaan meesha aan marayay qoladii saahay waxaan waryaada ciyaalka waxaan ku yidhi intii la joogtay waxaan rabaa hooyo siday sameyn jirtay si ka fiican inaan guriga u sameeyno walaada waanu sameynay islaamada dariska ah yiri sheekhow anaga iimaanayno guriga sameeyno xaraam bay ka taaqoori guriga anaga sameeynayno laakiin waligay ma iloobin guriga shaqada gashay musqushi dhaq muraayadaha tirtir daahi bedel Soomaali garan daahi bedel sariirtii gogol ubax soo dhig armaajadii meesha taalay gadiyo meel kale ka soo jeedi war ilaa shaqadu waa shaqo adag sariirta bedel ma sariirta bana bedelin ha sariirta bedel oo sida haday haysa u jeedi markaad banaanka u baxday gabadhii oo islaamaanta odaygii waad ka calaysiisay war arbuuba dalqad soo tuura ka waran hadii aad u timaado adigoo ubax u wada iyo adigoo intaad warqad jeeg u wada jeeg bad u wada jeeg lacag maaha mar alla markii ay aad u timid ayaad iyadoo le odaygu waa carisan yahay ayaad albaabkana ka furtaa soo dhaweysay kadib aad jeega u dhiibtay jeega maxaa ku jira maranaysan jeegu wuxuu yahay habeen iyo maalin hotel 5 star inay seexanayso خلاص waa dhamaat intaas weey horta nolosha la idin sheegaya waa inta ragana kama qariyo anu waanu sheegaa haddana bambaasaan ka imado waanu soo sheegay waxaan idhi reerka wanaagsani qodob baan kaga hadli doonaa yana ka dibdhicino tajaddudul hayaa nolosha in la cusboonaysiiyo ayaa la yiraahdaa xuquuqda marka waa qodobkeena saddexaad maxaanu nidhi qaacidadan qaadanay waa maxay xoog waxba ha saarin anigu maxaan leeyahay waxaad xooga saartaa maxaa laygu leeyahay gabadhii waxay bixisay wixii lagu lahaa ninkina wuxuu bixiyay wixii lagu lahaa meeshiba inta la rabay ee sharciga looga dan lahaa intaas oo ahayd qodobkeena afraad waa qodob aad u culus aad u fudud dadku ilaahay waafajiyo aad ugu fudud laakiin aad u culus lacag kuma fadhiyo sida korontada lacag lagama bixiyo ma taqaanaan kan arab al-kalimatu at-tayyiba reeraheenu maanta waxay u baahayeen waa inta ninkaaga ma dhihi kari laday habiibi ma dhihi kari ninku xaaskiisa ma dhihi leeyahay habiibati ma dhihi leeyahay ma dhihi laday ninkaaga kelimad midda ugu macaan kelimada qalbigiisa markaad ku dhahdo qalbigiisu isbedelayo in badanna waan sheegay waxaan nidhi gabdho badan baan u muxaadaranay hadda kor waxaan ku yidhi adeer aduu magaca cawrala aduu magaca faadumo yaa kuu bixiyey aabbahay iyo hooyaday soo ma maxay ninkaagu muxuu kugu yeedhaa faadumo ninkaaga magacii xuseen yaa u bixiyey hooyadii iyo aabihii oo adigu ninkaaga magaceed oo la baxday ninkaaga waa inaad magac oo la baxdaa soo saas maaha magac uu jecel yahay ninkaaga u samee oo isla taqaanaan idinka labadiina isla taqaanaan ninkuna waa inuu magac nabigeenu wuxuu dhihi jiray yaa caaish hatta tasghiru caaisha si uu qalbigeeda u farax geliyo waxaan u malaynayaa markaanu guryaha ku noqonno intaas sii socoto inta inaad ka fikiri doonto talo odagaaga magacee ku habboon ya macaddow baad dhihi kartaa ma macaanow baad dhihi doontaa marakar gabdhaha waa artay 5 karoon bay la baxaan marka ninkaaga 10 karoon u bixi marka
طبعا كرون ميادو بحين دونتا وين المقع بحسنين كاغا قلب كاسوا مفتاح الكلمة الطيبة كلمة وناكسن أفحمضة قريها لك إلاليو قريهنا أفحمضة عنك إلالينو أفحمضة عنك إلالينو كلمة طيب كأه رقنا وسيدو كلا طبعا مد كلا جرا فركله الابتسامة لولا عدين وقصل فرحة أي لصعته أو لولا عدينا أو نقنا أهين لكن أنا عرف تشيرين قبلها قيب كميدا الله نوض هنونية إلهي أمركي وحاويان وحد دائما بعريسيهم به رجنا واسلو كله ولذلك بقول لي دمر كي يقالني مركي دحجلين وحيدهم دمر كقيب أفتاق لي هذا ما كميدا أفتاق أيضا حالي لما تكون سيحتي ومبيسوتوس أيضا عريسا وحكي عريسي اللي بيقان اسكود إلى الفرح صناته ولي بعرورت هذا إيا نينكا نحضوضا فرح صنو رجنا واسلو كله مع الأسف رقبة وحالة يابا نين إنو حاسكيسا مركو بناكا تشوغا وفرح سيهي مركو رجل لا تشوغا وفرح سيهي قريسا مركو صوغا لأمبا وحال مودا إلا يدع عريسنو واسيدا إسلامتو تريو كله زوجي معاي تري نينكا يقو بيتري يا وحي تري زوجك يقو بيتري محالي هذا مركب والدجال قالنا وحيتني وفلي واسيدا قريضو كله أنا قال مركو ماذا واللي بحبت رجنا قاربا نوع عاسة دمر كنا قاربا نوع عاسة محاكو كالمين كرا إن الفرح سناتو مرايدة وحنقولها تليلها قبل والبي مرايدة قري قاقة تعالى بل هل برموسو ليه بل صاد وقت فيري ولا قروح بل صادني مرايدة وحيكون شيء صح يا خلتك سلا درادة والله إصبرا مرايدة يكون شيء إصبر علماء التربية مركز علماء النفس مركز كالليان وحي دهان مرايدة وحبضن بالتربية يسا مركز موصون يسو بل قروح هذا فيري إصبر أضو موسى أركيسا هل أرينو كله أنا دكتور بيريو ميجا ينسى هذا رون شيء مصعبة هذا أرك هذا قلب كان كليا معها صدح ويك بقى نولش الله قيبيا صدح ويك أيا نولش الله قيبيا سيدا نبا عرورت هذا إيا أضيقاقة إيا أديق وحالس كوافقة صدح ذن أسبوع صوص صعدة وحانو كد ذالينا قف والبو مركو قفك لك أصور بحو موصوت هذا قف والبو المير باك زور بحي كلا زور بحي كلا حاجات وصدح أسبوعية أضيقي المير واسك زور بحي كأغوير الصوح ما فهميه مركو أركو دادك ودانا ودا ساسلة ساموديها ساقنا والله إصبرا صدح لويجي كحيجا وحالها وأنكو تشعله ساسا نوشة غيريسا صدح لويجي صوص عضا قفك مركز ومسخوش كصوبه وأنكو تشعله مركز كصور بحضان وأنكو تشعله مركو حقينه وأنكو تشعله وكا صدح ويجي نورش الله قيبية صما قلنا مر والبوحسو ألف عروت مركي أركان أبيه هو يدي كله وأنكو تشعله هو يدي وأنكو تشعله علمي يركا وانكو تشعله اب وانكو تشعله هوي وانكو تشعله وايدي تشعله واسمه تشعله غوريك ما شعايل بركاس غوريك تشعايل بنغريا ايضا وصدح ويد نفتا برانيسا marka dambana wax kale ayadu alifaysaa ibtisaamadu ayadana waa khutwa waa talaabo nasiinaysa guriyaheena inaan saacado ku noolaano nabigeena baray sallallahu alayhi wasallam qisada yar ila dhageysta haweenay ayaa ninkeedii baa dhintay ciidada markay ka baxday 4 bilood iyo 10 habeen markay u dhamaatay iyo xooga ay joogtay ayaa waxa lagu yiri maad guursatid baa lagu yiri
الداعي وحيتري حاجة كده يسنجي أستاذ عائشة وحيتري دا كستود قاعد هيسليبني قرص الرقبة أيقو كنت تشري قرص سما قضبك وانش على يستي وأنا أتكينا يا قضبك وعاويا أستاذ عائشة رمبي شيكتي وأنا كعليا أنا محاضرات كي وحاكمة محاضرين هذا أفرتنشر راليا والرب جيدا تقانا والراحة أدون كي رقوا يلا موجاني مركز إسلامان حوا السوق والسبيني سماها سلانتي وين سلانتي اللي حرورة شيء تضواته قبل أيضا ير أي سومالي اسكن دادي أنا يان قبل ويناتي مركز وحار ربينا عنده قبل ميدان وينانين إسلام تضواته شرته أي السؤال ويديو ليلي هوانكو قرمي قورك كقوستان جواب في عم بحسو حيتري كوا يقوى وين هلا ويديو مركو عادي حاسو ديبي مركادو أنا يعني الديار من وليها هاي كوا يقوى وين ويديا إذن كنا السبب تقيبت كل هذه مركي عرض يرو وين هذا بتقرب ساعة أنت تقاطع وريك باللابي أو ضيق الضيعي سوساس ما مركاسو دي أسجنا ملك الرأسنا قبل القصة دي من ذي وذي وحيتري ما وحد ليس زوج كي إنه دنتي ولي وحن إنده كو أركا أو ولي إلى النور موسود كيسي يدل عدين تيسي ولي أركابت بارقدا أيضا لقد دنتي يولي موسود كسعون إياه قضبك كلا فرها والحب والمودة لبدا قضب شعيلكم إيا موددوا وحويا ولما قضب سورة الروم آياتكم يا لباتنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة مودة يا رحمة لبدا سوئن قريه لغهله وموددنا وحيت الماميسة قف كان وقف كان أو إلاليه وحيدها المودة والرحمة رحمته تمام مودة يا الرحمة وقتي ورقد بالسوستة مركوا سؤالنا إن شاء الله قرينا وحاكم المودة يا الرحمة تفصيل عجيب بكليهن مودة يا الرحمة على كل حال وحاب مفتاح نسين كرا بمعنى قرينا وإنه تشعيل كم وقضه قرينا وإنه الرحمة أي كم وقته مركي دباتات نعضه إلا سنة حريسته ليس شعلاضه ليس سودويه وحاكميدا فرياشة إيو خطوات مهمة التسامح ولا ليالو هل أرين هدان عاوة إذين شيغو ما إسكود يسارين عن دقن جرينو أرتا وحن شيغينا قبضا دقن جريسة وندو عيننا إلهي نوزياديو وحاسميننا جمعة والبا أما أسبوع والبا بل والبا جمعة ومدن بيس إن شاء الله نسمع قرآن ما حديث ما سنين بين غرتا 3 أو 4 غرتا لكن أنا بس قياسي بل والباق جمعة ومدن بيسة عرورت هذه كل أنت سو كل مسو هي حاجة وعلى صدر مع الموضوع عمرنا أبتجي وحكى سان صور أحمر كرا هو يدا وحلقة شيئا كرا أبها وحلقة شيئا كرا عرورتها وحلقة شيئا كرا عرورتها والدك وحكى شيئا كرا وحاربنا إنه إسعفينه وإله بايري إسعافية عاو هدان منه سيان انت نرى إسرسعنا لو يرادوا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون وسيدة الدنيا دا أنا سوتش الله إن آخر الجنة وقال مركاسا واللي إسعافين ورقد بالله الصحيح إلا إسعافيي جمعة الله قبل الله بيشن سوسعتا وغير هرله وأضيء إسلام هرله وأبي عرور هرله وعرور يا أبا هرله هل كاسا نولش مركا لقى بالله يا قدم كان نبيعي تسامح يا دياروا عاوة مركا يقولك كل نقطة قبل ده يسا أضيء هذا عاوة لقى بالله انت نسخبني أردن عاوة أنا إلهي درتي بكو عفي بس عاوة هدان انت آخر وحلقوا ما يسا عر قبل ده قاعدة تاقيسا عر لبضوا قعمود بقبر باتاكت لكن انت بدل ما تهاجم فيريا
يعني waa dhaarsantiin sama odayaasha u dhaarsantiin soo saas ma aha waayahay qodob kale oo cajiiba qabsada adeerayaal qodob kale oo la yaab leh oo cajiib la qabsada qodobka waxaa la yidhahdaa tanaasul in laysu tanaasulo xaq aad lahayd inaad xagga dhigto adigu iihaar inaad naftaada ka doorto waxaad adigu arkayso intaad xagga dhigto inaad walaalka u tanaasusho waxaa kaloo asagana jira almarax kaftan wax la yidhahdo walmazax guryaheenna yaanan ka dhigin qubuur yaanan ka dhigin waa in guriga lagu dhex kaftami karo mar waa in odayga layska qabsado kaftan bannaan oon waxba dhaawacaynin mar waa in xaajiyadda lala kaftamo mar waa in carruurta lala kaftamo nabigu waa la kaftami jiray xaasaskiisa sala allahu calayh waali wasalam waxaan soo ogaanay aabba iyo hooyo laba reeroo isqabta oon wada hadlinba malaha carruurun bay dhalaan say ku dhalaan allahu aclam walcilmu cinda allah sheeko kama dhaxayso farxad badan kama dhaxayso waxaad mooddaa inuu guriga geeri iyo meyd dhex yaallo maya see lagu abuuri karaa inaad ninkaaga iyo adiga aad wada sheekaysataan markaad rabto inaad ninkaaga la sheekayso oo ninkaaga aad ooma sheekeeya raggu aad ooma sheekeeyaan gabdhaha sheekada badan inta badan waxaa dib loo xiso alla hebelow hal su'aal baan waa iloobay hal su'aal haddaa adiga igu dhaanto ixsuus maalintii ugu horraysay oon is aragnay xaggeen horta isku aragnay awal yowm waxaan u malayn hadda markaan saas leeyahay daddaba maskaxdooda ka shaqaysiinaya anigii iyo adiga maalintii u horraysay oon is aragnay xaggeen isku aragnay odaygii markuu ka shaqaysiinaya haa wallaahi halkaas ku aragnay ma iyo halkaas bay ahayd sheekada halkaas ka bilaaban laba su'aasha labaad waa maxay horta waanba ka shakisnahaye hebelow aniga iyo adiga horta ma adaa i jeclaaday mise anaa ku jeclaaday kolba gabadhu waxay dhihi acuudu bil adaa i jeclaaday inaan gabdhuhu ma ogolo in la dhaho anaa ku jeclaaday dagaal bay ka xigaan xataa hadday iyadu jeclaatay dagaal bay ka xigtaa in dhaho anaa ku jeclaaday marka taa raggaa la iskaga daayaa waxay leedahay horta ma anaa ku jeclaaday haddii qof la jeclaado waa tahay hadhaha markaas sax soo maa haddaan ku jeclaaday qof la jeclaaday ma og tahay faaduma ma og tahay ilaahay amarkii maalintii aan ku bartay een isguursannay iyo maanta inaan maanta ku jeclay horta ma ogtahay maantaan ku jeclahay kitaab qur'aan soo qaad oo kugu dhaaran karaay soo qaad haa maxaa dhacay mataqaanaa iweydii hadda sheekadii baan wadaan la socoyaa hadda aniga ayay gaawashay sababta ma garan maalintii ma ana aqoonin waxaad gasho waxaad guddo nadaafadaada ee cuntadaada qaraabada ilmahaaga ma baan aqoonin maanta waxaan bartay yacni wax walbaan kaa bartay maanta kuma quuri karo waxaan kuu sheegi maanta ilaahay baan ugu shukrinayaa ilaahayga maalintaa i kaa tusay gabadhaasi ninkaa ma iloobi kartaa maya ma iloobayso sheekada halkaasaa looga bilaabaa sheekooyinku way badan yihiin haddaad rabto inaad ninkaaga sheeko bartana muraayaddii baad hor istaagi muraayadda u sheekee adoo sheekadii muraayadda is soo fahmay oo meeshaad qosolka gelin lahayd iyo meesha aad xoogaha hadalka adkayn lahayd adigoo bartay markaa imow insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaa ka mida madaxa ammaantaa ka mida waxaa ka mida ixtiraamka labada qof inay is-ixtiraamaan waxaa ka mida sida oo kale annadaafatu waalanaaqa guryaheennu waxaa weeyaan nadaafaddu waa cajiib yacni waxaa waa ustaada caaisha idinkala hadlaysa waan maqlayey laakiin si hoos weliba in looga sii hadlo mawduuca nadaafadda gabdhaheenna soomaalidana waa lagu ammaanaa oo aad bay u yaqaanaan nolosha in la cusboonaysiiyo raggana waa sidoo kale inay nolosha cusboonaysiiyaan ayagiiba aabbayaala reerka bannaanka mar la geeyo beeraha la geeyo hoteellada la geeyo hadday awooddu ay dhan tahay maxaa la yidhahdaa iinkaan qaraabada la soo salaamo gurigii hadalkaa la beddelaa oo gurigaa la beddelaa oo gogoshaa la beddelaa oo cuntadaa la beddelaa oo aragtida bas xataa waa la beddelaa aragtida xataa waa la beddelaa haddaad ninkaaga saa u fiiriso maalin si aadan u fiirin jirin haddaad u fiiriso oo yidhahdo maanta aad baad ii fiirinaysaaye waxaa weeyaan iikeen waxaan kala garan lahay dheh adig iyo dayaxa kiinee cad adig iyo dayaxa kiinee qurux badan taasaan kala garan lahay dheh waa intaa wax meesha ku jira
nolosha laydii sheegayo waa sir wey sir nolosha laydii sheegayo waa sir wey marka qodobadaasi waa qodobo fara badan waxaan ku soo gabagabaynayaa qodob runtii aad u culus oo la yidhaahdo alxiwaar bini aadan baa tihiin waxbaa idinka dhexdhacaya wada hadla isqanciya wada fadhiista carruur baa idinka dhexaysa ood isku khilaafaysaan xoolaa idinka dhexeyo isku khilaafaysaan qaraabaa idinku dhexeyo iska khilaafaysaan cibaadadii buu qof iimaankiisa hoos u dhici karaa wada hadla maxaa noo diidan inaan wada hadalno meel cidla'a ku wada hadalno meel fiican ku wada hadalno i dhegayso waan ku dhegaysan imaqal waan ku maqli hadalka kiisa fiican ii door waan kuu doorayaa taas weeye midda la doonayo aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin qaabka qiimaha badan eed u dhegaysateen adduunyada ma soo marin gabadh ninkeedu wiilkeedu uu meyd yahay oo aroos gashay gabdhaha muslimaadka baa laga helay ummu sulaym رضي الله تعالى عنها وأرضاها أقرأ قبله السلف الصالح سيرضودي واتكفى إليس ليسان اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته